السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز سودا واده أدي هذا ومهتنتهين maanta waa talaado waana 24ka bisha 6 ee June sanadka 2025 muuqaalkan waxa rabaa inaan idin kula wadaago hooyo Soomaaliyeed oo gabar yar oo 6 jir ah oo ay dhashay faash madaxa kala dhacday ama faas qof waliba sidoo u yaqaano gabadhii iyadoo dili rabtana wiilkeeda uu boolisku u wacay gabadhii xaalad halis ah ay ku jirtaa oo isbitaal ay ku jirtaa maamadiina waa la xiray arintan waxay ka dhacday magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo idin la wadaagaya arintaasi maxkamadda sare oo maalnimadii shalay ahayd maamulka Trump u ogolaatay in dadka soo galootiga sharci darada ay u masaafurin karaan wadan saddexaad oo aan ahayn wadankii ay u dhasheen iyadoo waliba aan wax process loo ogolaanin oo kiisaskooda aysan ka doodin arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore Louisville ee gobolka Kentucky qamiistii waxa ka dhacday in hooyo Soomaaliyeed oo magaceeda lagu sheegay Zainab Cabdi oo 40 jir ah ay gabadheeda oo 6 jir ah ay faas madaxa kala dhacday dhowr jeerna ay ku dhufatay markaas kadib ayaa wiilkeeda uu boolisku u wacay boolisku markay yimaadeenna gabadha oo dhiigaysa ay u yimaadeen oo lafta madaxeedu dhowr meel uu ka jaban yahay isla markaana maskaxda uu dhiig uga furmay gabadhii isbitaalka caruurta ayaa loola cararay qalliin ayaa lagu sameeyay walina xaaladeedu halis ayay ku jirtaa gabadhaasi maadaama dhowr jeer faas madaxa ay uga dhufatay hooyadeeda ama faash qof waliba sida uu u yaqaano hooyadii markay ay boolisku wareysteen ayaa waxa ay qiratay in gabadheeda ay madaxa faashkaasi kala dhacday walibana aysan ogeyn inta jeer oo ay ku dhufatay waxa ay tiri marka aan caroodo isma xakamayn karo dadka qaar waa ay jiraan arintaasi laakiin ma ahan meeshii caruurtaada faas aad madaxa kala dhici lahayd haddii aad carooto waxa qasab ah inaad isxakamayso haddii aad awoodo haddii kalena guriga ka bax ee iska soo wareega soo laaba marka caradu ay ka baabado laakiin ilmihii ayaan ku jeesanaya oo waan dilaya arintaasi waa arin halisa marka qurbahan la joogo marka wiilkeeda oo la wareystay wiilka da'diisu intay tahay lama sheegin markii boolisku wareysteen ayaa sidoo kale waxa uu yiri hooyaday waxaan isku dayay inaan celiyo markii aan qabtayna waa iska kayfujisay waxana ay tiri isug aan dhamaystirey marka sida muuqataba waxa ay doonaysay in ay gabadha disho oo ay nafta dhaafiso carada intaasi la ag waxa ka keenay ilaa hadda lama ogo maamadaasi kulay in xaalad maskaxiyan ay qabtayna lama ogo laakiin boolisku arrimahaasi ma aysan sheegin waa la xiray waxana lagu soo oogay isku day dil inay doonaysay gabadheeda 6 jirka ah in ay disho arintan qamiistii ayay ka dhacday magaalada Louisville ee gobolka Kentucky hooyadana hadda xabsi ayay ku jirtaa gabadhiina sidoo kale isbitaalka ayay ku jirtaa oo xaaladii dhaawac ayay ka soo kabsanaysaa walow ay dhaqaatiirtu ay leeyihiin xaaladeedu waa halis marka arrimahaas waalidiinta Soomaaliyeed waan uga digayaa in caruurta canaan dhibaato intaas la eg in ay gaarsiiyaan oo yiraahdaan xanaaq waan xanaaqay oo waan isxakameey waayay arintaasi wax suuragal ah ma ahan waxaan leeyahay hooyadaasina Allah u fududeeyo gabadhaasina Allah caafiyo intaas hadaan ka gudbo sheekadaasi maalnimadii shalay ahayd maxkamadda sare ayaa waxa ay u ogolaatay madaxweyne Trump in uu dadajin karo soo galootiga sharci la'aanta isla markaana uu masaafurin karo wadan saddexaad oo aan wadankoodii aan ahayn waxay maxkamadda sare ay soo saartay xukun ka kooban 19 bog laakiin ma aysan sharaxin sababta ay amarkan ay u soo saareen maxkamadda sare 9 garsoore ay ka kooban tahay 6 kamid ah ayaa isku raacay in Trump loo ogolaado in soo galootiga sharci la'aanta uu masaafuriyo wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn waxana diiday 3 garsoore ee liberalka ah oo Sonia Sotomayor Elena Kagan iyo waliba Ketanji Brown Jackson ayaa ka soo horjeestay waxana maxkamadda sare aan ognahay 9 bilood ayay shaqaysaa hadda toddobaadkan dhamaadkiisa ayaa maxkamaddu ay gabi ahaanba ay soo xirmaysaa maxkamaddu waxa ay furantaa October isniinta u horeysa bisha 10aad isniinta ugu horeysa ayay furantaa waxayna ku eg tahay bisha June dhamaadkeeda bishan hadda dhamaanaysa marka khamiista ama jimcaha soo socota maxkamaddu way soo gabagaboobaysaa waxana ay dhageysataa muddadaasi 9 bilood 9 garsoore ay dhageystaan kiisas u dhaxeeya 5,000 ilaa iyo 7,000 hadda dhowr kiis oo laga sugay ayaa jirta inay go'aan ka gaaraan waxana kamid ah
arintii Trump markii uu xilka loo dhaariyay uu yiri caruurta wadankan ku dhalata oo soo galootiga sharci la'aanta ay ku dhalaan in aan loo ogolaanin dhalashada Mareykanka oo inay go'aan ka soo saaraan la filayo inta aysan maxkamadda aysan soo gabagaboobin xilligoodu toddobaadka dhammaadkiisa June July iyo August iyo Septemberna garsooreyaashu fasax ay ku maqan yihiin October ayaa haddana maxkamadda sare waqtigoodu 9 garsoore uu dib u bilaabanaya haddaba marka amarkan shalay ay soo saareen oo ay diideen garsoore federaal ah in uu horay uga soo horjeestay arrintan in soo galootiga sharci la'aanta loo masaafuriyo wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn halkaas oo ay kala kulmi karaan jirdil in dacwad lagu soo oogo ama xitaa geeri ay kala kulmi karaan ayaa maxkamadda sare hadda waxay u ogolaatay maamulka Trump in uu masaafurintaasi dib u bilaabi karo oo dadkaasi uu geyn karo wadan saddexaad oo aan ahayn wadankii ay u dhasheen waxaa jirtay in hadda bishii May ee 20keedii 8 soo galooti sharci la'aan ah loo masaafuriyay wadanka South Sudan oo diyaarad military lagu qaaday 8daasi qof waxa ay ka soo kala jeedeen hal qof oo ka soo jeeray wadanka Vietnam 2 qof oo Myanmar ka soo jeeday 2 qof oo Cuba ah hal Mexico ka soo jeeday iyo hal wadanka Laos ka soo jeeday markaas kadib South Sudan iyadoo loo sii wado ayaa waxa laga dajiyay wadanka Djibouti oo Mareykanku saldhig military uu ku leeyahay halkaasi ayaana la yiri ciidamada dadkan si ilaaliya waxa wasaaradda amniga gudaha ay ku micnaysay in 8 qof oo aad arkaysaan wadamadoodii ay diideen in dib loogu soo celiyo sidaas darteed ay garteen in wadan saddexaad la geeyo wadanka South Sudan oo loo waday qalalaas iyo dagaal sukeeye ayuu ku jiray ilaa iyo markii xornimada uu ka qaatay wadanka Sudan sanadkii 2011 marka waxa hadda loo ogolaaday marka in wadan saddexaad oo aan wadankii dadka soo galootiga ay u dhasheen aan la geyn karin Soomaali xitaa waa laga yaabaa in wadan kale la geeyo hadda 12 bishan hadda sii dhamaanaysa 4 qof oo Soomaali ah ayaa Mareykanka laga masaafuriyay oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya laga dajiyay waxay soo jireen dadkaasi dad gudaha laga qabtay iyo qaar markii wadanka ay soo galeenba aan Mareykanka gudihiisa loo soo daanin oo xabsigaasi ku jiray 2 sano ku dhawaad ama ka badan xabsi ku jiray waxana mid kamid ah uu ii sheegay oo aan la hadlay in ugu dambeyntii markii xabsiga uu ku jiray laga saaray oo xabsi aad u dhib badan la geeyay la yiri 2 midood mid dooro in xabsigan dhibka badan aad ku sii jirto iyo in wadankaadii lagu celiyo waxana uu doortay in wadankiisi loo celiyo waxana loo celiyay Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ayaa laga dajiyay waliba toos Muqdisho loogu wado waxa la leeyahay waxa lagu daray dad kale oo wadanka El Salvador loo waday markii lagu dajiyay halkaas dadkii El Salvador loo waday ayaa iyagana markaas kadib magaalada Muqdisho loo sii duuliyay marka waxa laga yaabaa marka haddii dawladda Soomaaliya ay tiraahdo ma qaabilayna Soomaalida in wadan saddexaad la geeyo oo Soomaalidu aysan wax aqoona aysan u lahayn garsooraha federaalka oo Massachusetts fadhiistay oo leeyahay Brian Murphy ayaa 18 bishii afraad waxa uu yiri dadka haddii wadan saddexaad loo masaafurinayo oo aan wadankoodii ahayn waa in loo ogolaado 10 ilaa 15 maalmood in ay kiiskooda ay dacwad ka gudbin karaan ama ay ka doodi karaan oo credible fair interviewgi laga qaado wadankaasi aad u socoto nana qofku waxa la yiraahdaa in haddii wadanka uu u socdo laga yaabo inuu dhibaato kala kulmayo waa inaan loo celin marka hadda amarkaasi maxkamadda sare waa ay ka soo horjeesatay waxana ay tiri maamulka Trump waan u ogolaanaynaa in dadka soo galootiga sharci la'aanta uu masaafuriyo wadan saddexaad oo aan wadankoodii ahayn marka arintaasina waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha laakiin hadda maamulka Trump oo hadda 2 bilood oo u dambeysay dardar gelinayay qalqabashada iyo masaafurinta soo galootiga sharci la'aanta ayaa hadda amarkan waxa uu sii fududeynayaa in ay dadajiyaan dadkaasi oo wadan saddexaad ay geeyaan wadamo fara badan oo waxa jira ilaa hadda ka ogolaaday sida Panama El Salvador iyo Guatemala oo dadka intooda badan ay geynayaan haddii wadamo kale ay geynayaan sidoo kalena waa suuragal xitaa Libya mar ayaa la yiri waxay doonayeen inay dad geeyaan arimahaasi ayaa maxkamadda sare ee shalay Trump u ogolaatay Trumpna arintaasi waa uu soo dhaweeyay waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo